وحويان أدوكتهين ماشي أي تاي ماشي حردنا أي تاي حرد عيدمada أدمس أي كبحين waxaa la yaaba afayeenka waad maqlayseen in ciidanka daraawiishta ay Jubbaland afayeenkooda waxaa la yaab leh oo aad maskaxdanada uga weynaatay dawladda federaalku inay sheegato inay goobihii ciidamada admis ay ka baxeen ee ku yaalay dawlad goboleedka Jubbaland ay iyadu buuxiso waa arrin la yaab leh sargaalkii kala wareegay ciidamada ay in admis in xeradan kala wareegay anigu ahaa anigii baana dhex taagan anigii baana ka hadlaya been inta la eg baa loo bareerayaa kolla isma lahayn waxaa fiican dawladda federaalku saraakiisheeda iyo madaxweynaheeda iyo isla saaraheedu inay xaqiiqada sheegaan laakiin inay waxaan sax ahayn ay ummadda u sheegaan oo ay dhahaan waxa iyo waxaasan sameynay oo meeshaasan degnay oo xiriyahaasaan haynaa wax been waay waad aragtaan cadaymaheedii baan intusayay sargaalkii xirada kala wareegay baan ahay waa waxaan waxba ka jirin waxaan waxa weeyaan hadii la ku soo galiyahay beenaho in aan la garanay inuu Xasan Ciraaqi intuu kaambooni loo soo diro oo kaambooni la keeno uu yiraahdo waxaan joogaa goobihii ciidamada admis ay ka guureen oo ummadda Soomaaliyeed war inta la egu sheego oo waxba ka jirin aad baan uga xun waan ku celinayaa waxaan ahay taliyihii kala wareegay in magaalada Kudhaa in xerada admis magaalada Buurgaabo in xerada admis ay ku taalay taliyihii kala wareegay baan ahay kulligood bidhaantayda way arki doonaan way wadaawan doonaan sidan oo kale waxa weeyaan yaan video call wada galay walow aan filahayo inayna cod duubin laakiin sawiraantanadii baa yaala way og yihiin waxa kaloon cadeynaya maalinkan xeradan aan la wareegayn waxaan ku nidhi xeradan waxay ku taalaa dhul istaraatiiji ah iyo xerada Buurgaabo cadowga joogana cadow aad u fara badan waay waxaan rabnaa maxaad noo qaban kartaa waxay dhaheen annaga bataatan ba madaxweynaha iyo sulsaaraha waxaan ka haynaa xiriyahaas inay burburi noogu qoran yihiin oo aanan iman karayn oo aanan waqtigan xaaliga ciidan u haynin marka inay maanta waxa weeyaan ciidankay shalay ila aayeen ee waliba anu weydiinahay ee madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland uu weydiinahay ee ay lahaayeen waxa weeyaan ma heli karo mana awoodi karo ee uu madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland uu soo hadlay uu ugu yiri xeradaas soo ma difaacan kartaan ku waan difaacan karaa inay maanta dhahaan ciidamada jooga aad baan uga xumaa aad iyo aad baan uga xumaa wax noocaas oo kale in lagu hadlo in laga xishoodaana fiican waliba si gaar ah saraakiisha ciidamada waxaan leeyahay waxyaalaha waxa weeyaan aan haboonayn ee nidaamka ciidanimo aan ku haboonayn ee ummadda Soomaaliyeed dhagaheeda aad ugu ridaysaan ee khaladaadka keenaya ka daaya saraakiil Soomaaliyeed baatiin mustaqbal baa dib u leediin mustaqbalkiina ha ku ciyaarina raaskamoon ayada cad miskaba jirin waxa joogtay ciidanka daraawiishta iyo ciidan boolis oo ay Jubbaland la raaskamoon degan wayna og yihiin marka waxaan dhihi lahaa xishooda oo wax isku fala oo ka daaya waxa soo kale saraakiil baa tihiin ummadooda u shaqeynaysa yeena idinka xumaan siyaasadaha oo in khaldan ee guraacan aan anuguba arkahayo waad arkaysaan ayaan been leedin ku sheegin aad mahad moogano oo maqal oo dhageyso Midnimo Construction Company waa shirkad dhismatii ugu haboonayd oo mar un ku dhisi lahayd minin wada muraayadood ku maqsuudo oo mid kasto arkaba u majeerto ee Midnimo Construction Company maalkaaga u dhiibo si ay magaaladan kaaga dhisto gurigaaga riyada injineer ilaahay wax baray oo idilkeed Soomaali ictiraaf ka siiyeen inay kugu diyaar yihiin Midnimo Construction Company inaga ka maragay maanta ba qorshahaaga dhismo u dhiibo Midnimo Construction Company adeegyada Midnimo Construction Company ay ku qabanaysa waxa kamid ah dhismaha dabaqyada filooyinka bacwanayaasha iyo nooc kasta oo dhismaha waxaana sidoo kale ay kala iibiso ay kala kiraysaa guryaha nooc walba oo yihiin dabcan iibinta dhulkana kama marna wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada ciwaanada shaashada ku qoran